bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan khiyaarta wadayga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii caalamka kuwadii ugu dambeeyay wadahadaan oo kale ka daawataan page-kan muqaal wareedka intuu soconayo haddaba eebaydma waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan oo lahayd 33 saldhig oo cirka ah intii dagaalku socday taas oo la sheegay imika in 3 saldhig oo kaliya laga gubay halka Mareykanku uu sheegay in 95% iyo 5 ama 90% ay awoodii badda Iiraan ay baabiyeen waa 14 bishan 2026 intaana ku soo gudbin macluumaadka soo faahfaahsan fadlan maqaalka leega saar oo share garay oo u geey macluumaadka ku saabsan Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca dadka inay wax ka ogaadaan jecel aad baad u maasatay hadda intaas sameeyda iyo haddii aad sameeydaanba maqaalka aad u share garay adigoo aad u maasan aynu ku bilownay saaxiibayaal dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa lahayd 33 saldhig dagaalka ka hor halka la sheegay imika in laga gubay 3 saldhig oo kaliya inkastoo ay marinkan Hormuz ay ku sugan yihiin maraakiib dagaal oo aad u casri ah oo Mareykanku leeyahay kuwaas oo diyaaradaha ay ka duulaan sidoo kale Mareykanku wuxuu leeyahay gujisiyo aad khatar u ah oo gunta hoose duqayn kara haddana taasi bedelkeeda Iiraan waxay ka dhigaysaa 33 saldhig ee Mareykanku uu sheegay in gabi ahaanba 95 ba la burburiyay in imika 3 kaliya la burburiyay laakiin intii kale ay yihiin kuwa aad u shaqaynaya sidoo kale waxaad ku maqli doontaa macluumaad kale oo ku saabsan oo ku soo biiray dagaalka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ay Mareykanku la jirto gujisyo yaryar oo cajiib ah gaar ahaan gujiska loo yaqaano Gadir ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid badda gunteeda hoose ka soo kacaya kaas oo uga baahan oo kaliya Iiraaniyiinta in marinkan Hormuz ee dhuuban ay Iiraan horta ay awood ku leedahay alla awood leh dhanka kale gujiskan Nadir lagu magacaabo ayaa wuxuu laga tuuraa baa leeyahay gantaala ayuu tuuri karaa sidoo kale wuxuu ka dhuuman karaa baa la yiri raadeerada cadowgana gebi ahaanba uu ka dhuuman karaa sidoo kale wuxuu ku shaqayn karaa baa la yiri gujiskan Nadir la yiraahdo wuxuu ku shaqayn karaa koronto iyo sidoo kale shidaal labadaba uu ku shaqayn karaa haddana marinkan Hormuz ayuu ayay Iiraan u bedeshay xeeladii maadaama ay diyaarado aad awood u badan alla awood leh ay kor haabayaan sidoo kale diyaarado casri oo daroosa ay kor haabayaan sida Mareykanku uu sheegay 95% buu waan burburinay laakiin taas waxay noqotay huuha iyo war aan waxba aysan ka jirin maadaama 33 saldhig ee Iiraan ay badda ay ku lahayd 3 kaliya la gubay intuu dagaalku u socday saaxiibayaal gujiska Nadir ee Iiraan ay leedahay ayaa wuxuu u baahan yahay 7 ciidan oo kaliya uma baahna ciidamo aad u tiro badan sida kuwa Mareykanka oo ay 12 iyo ka badan ay saaran yihiin wuxuu u baahan yahay oo kaliya 7 qof oo askari oo kaliya oo maamusha maadaama uu korontana ku shaqayn karo sidoo kale oo shidaalna uu ku shaqayn karo Iiraan marka waxay la soo baxday leeyahay hub cusub oo dagaalka ku jirin oo ah in ay la soo baxday goosayaal yaryar ah oo dolphin loo yaqaano oo Gadir ugu khatarsan yahay halkaasna badda imika uu yahay mid loo dhawaayay gabi ahaanba markii taasna waxay dhalatay markii Mareykanku uu weeraray maraakiib oo ay Iiraan leedahay oo halkaasi gujisyo lagu gubay ayaa iyaduna waxay sameeyday gujisyo yaryar ah oo aad heerkoodu ay u sareeyo oo gunta hoose marka ay qoosaana 160 oo noqonay culeyskeedu halka marka kalena oo 120 oo noqon karo Mareykanku marka imika qaati bilaa ayuu ka taagan yahay marinka Hormuz gabi ahaanba waxa awood ku leh awood leh Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan Mareykanku wax kasta oo sameeyo gujis kasta oo soo diro inkastoo ciidamada Mareykanku ay awood u leeyihiin awood leh inay ogaadaan taas haddana waxay u baahan tahay waqti aad u dheer iyo sidoo kale waxay u baahan tahay maaliyad aad u tiro badan iyo waqti tiro badan maadaama gantaalka Nadir markii uu doonayo inuu wax duqeeyo in ay Iiraan sameeydo diyaarado drone ah iyo doomo dheereeya ayaa markaasi bedel soo geliya markay ciidamada Mareykanku ay halkaasi ay ku mashquulaan gujiska Nadir ayaa tartiib uga shaqeysta oo markaas maraakiibta wuxuu gubi karaa maraakiibta ganacsiga oo dhaawac u geysan kara kuwa shidaalka wada
kuwa waaweyn ee gujisada badda quusa waxaasoo dhan ayuu markaa isaguna uu ka shaqaystaa halka Iiraan marka ay diyaaradaha droonka iyo doomaha dheereeya ay ku mashquulso ciidamada dalkaasi Mareykanka dagaalka si uga baxana uu leeyahay si uu guul u sheegtana ilaa imika uu leeyahay waxyaalihii dambe saaxiibayaal ka soo cusbanaaday iyo wixii ku soo darsama oo dagaalka Iiraan ay ku soo kordhiso ama Mareykanka ku soo kordhiyaan halkan ayaan kula wadaagi doonaa waa update wala aynu maalmahan dhan aynu kala maqnayn oo aynu arrimo kale oo Soomaalida iyo waxaasi ay ku mashquulsaneen wixii muhiim ah oo sidoo kale ayaan soo gudbin doonaa fadlan muuqaalka leega saar oo share garay oo u geey cid u baahan halkan waa page-ka Wariye Wacane marka sala soco oo follow dhaho oo markasta baraha bulshada waad ka raadin kartaa adigoo macluumaadkeena ku qoriye Wariye Wacane oo kaliya aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal reer Facebook